أيها الأحبة مركا إعلامك هو خطر وخطر كيهي وحلا فافين يدك اللو شيء ما حينو إنه إعلامك كربنا مركا وحكربنا دتك إن إعلاميين تيني مسؤولية قادان إعلامك مسؤولية باهية وحو باهية إنه نقضه مرآة لماضي الأمة الإسلامية إنه نقضه هي وجه لحاضرنا سيدنا بينو غور رموه تاريخ دي إسلامك سيدنا بينو غور رموه حقائق دا شرته إعلامك وحن كربنا إنه نقضه أدوات التوحيد وحيدتك كل من لها فكر أهان عقيدة أهان ضدنما أهان أما كالله قرها النقضه أما كالله دعوضها النقضه أما كالله هدلها النقضه إنك السه إعلام كأنه يتابعه خلاف سي waxaan eegay netka villaku waxay yidhaahdaan oo statisticska ka warrama tirakoobyada bal Soomaalidu waxaanay qorto horta ayaa tirakoob ku samaysaa cidda ugu badan ee Soomaaliya subscribe laga yeey waa maqashaan dhalinyaradu markay meesha soo galaan waxay ku yidhaahdaan gambareelka taabo subscribe-ka taabo share gare waxaas ay idin akhriyaan Soomaaliya waxaan maxay u akhrinayaan lacag bay raadinayaan waayo إعلانك ير مركز كشرتا كسر دحبها إعلانك أسي جوجل سناتي بقطعة هدي viewers كاقوي بطان مركز أدينا سناتي داسو سناتي كاسينيا قفكري مركز وحربا سيدي الله داوان كرا وحكستو غريبة إيا بانا إيا وحكستو وينو شاقا سي مركز عنوان كاركتر مدحويني يولي ديلات صورين سايق مدحويني بل مدليني وحاولك ورويا waayo wuxuu rabaa inaad click tiraahdo clickta aad siiso isaga lacag baa ugu jirta qarba $200,000 qaata bishii laakiin waa $20,000 xaraana oo balay baas lagu qaatiyo dad isku dirkood waxa markaa meesha ku jira muxuu yahay iclaanku inuu mas'uuliyad qaado oo iyagu reer galbeedku waxay ku oranayaan xorriya makfuula weeyaan iclaamku wuxuu doonu qorayaa لكن هذا وحي هذا gentleman's agreement باكرة gentleman agreement عن قرين لكن دتكو أي سمية محاكم ده مثل ودنا ذكركود وممنوع إن جرائد كود اللقو قرو بيج تنبولي جرائد كود أو موتاق اللقو تعزيه وممنوع بيج كتعزيه ده اللقو صدره دتك يستله waayo waxay leeyihiin waxa dhiiri gelinaysaa in dadku istilo sida ogeed cid kasto kale waa tacsiyeyn kartaa laakiin dadkii isdilay hadii dadka isdilay lagu soo qoroode waxay noqonaysaa kumaan mudada ku qormaya oo dhamaantood aad leedahay hebel lagu isdilay Allah u naxariistay soo qorayaan hadii ka lagu qoro waxay leeyihiin waxa dhiiri gelinaysaa dadku inuu istilo wadan kamida wadanada reer galbeed ayaa waxay yiraahdeen war dadkan istilamaynu tijaabino maxay isu dilaan dadku sababtu waa maxay markaas la yiri loo ogaan kari maayo ee dawladdu ha samayso meel dadku isku dilaan kuwa shaneerna qofka ha loo dhiibo oo ha qoro qof waliba sababtu isu dilayo dawladuna ha qaaday inay dilka u fudaydiso dadka markaas sida isu dili lahaayeen laakiin waxaynu qadiyadan u sameeynaa beeleen cilmi baadhisa inaynu ogaano dadka sababaha ku kalifa maxay inay istilaan si xal loogu helo dawladda waxay furtay marka meel dadku isku dilo miyaad rabtaa inaad istishaa sida ugu fudud ee isu dili kartaan ku sheegayna kaalay balay sidee baad dil aan alam lahayn aan xanuun lahayn naftuna aad saga kawsin kartaa dawladda ku sheegaysa laakiin shartigu waa maxay istimaarada buuxi waxaad buuxinaysaa maxay waraaq questionnaire su'aalo ku qorayeen sababta isu dilaysa kan iyo dardaaranadii deymihii bangiga ku lahaayeen wixii caynkana wixii dhaqaalaan hadda inaan wada ku khalkhal galinaad si qorto wixii baa laga rabaa dadkiiba kuyuubay u qabsadeen meeshii dawladdiiba way argagaxday dadkiiba waxay rabaan kow inay iska siiyaan dabeetana wax la yidhi meeshana albaabada loo xidho projectkan hal la joojiyo waxba dambayay ka jirin ولذلك ما وحي ممنوعين حتى أدتك استيليا لغو قرو
innagana hadday habari meel ku kufto maanta 3 habrood ba xamar ku kufay baa lagu leeyahay war maxaad ka wadaadu wax kasto balaayo ah dad un balaayo sheeg oo aan wax samaa haba yaraatay sheegaynin waqtigii ma la wadhama Soomaalida statisticskeeda markaan eego waxa ugu badan ninka milyan iyo dheeraad gaadhay wuxuu ka warramaa kubadda cagta Manchester baabadisay shalayna liigi halkaas badiyay kaasa badiyay ka ku xiga waliba kinyu kaasi idin la jooga ka ku xiga bahalkiisa ugu badan waa heesuna 900 kun iyo dheeraad bay marayaan waxaan eegay cid webpage loo wadaado bal ugu dhawaada diin wax sheega oo webpage isagu leh wadaadada inta badan ma laha sheekh dirir baan eego 300 iyo waxoogaa 400 wax dhiban buu leeyahay waxaan uga dan leeyahay webpageskeena ama waxeena ugu tirada badan leh haddii amad shay taafiha buu ka warramaya kubadiya wax la nooca ama macsibu ka warramaya hees iyo wax la nooca wixii inta ka soo hadha kuwa ugu caansan baan eegay waa kuwa reeraha isku dira reer hebel ma maanta toban laga dilay reer hebel baa caynkan ku dhacday reer hebel baa cayn ku dhacay waa kuwa noocaasi ah kuwa iyaga ugu caansan nin nimanka social media ka shaqeeyo cadaan ah ayaa nin sheekho wadaadii wuxuu igu yidhi oo ay kambaniye isugu yimaadaan shaqo ayaan idhi buu yidhi war annaga kaayaga horta ma eegtay kaayaga maxaa ku jira markaasuu wuxuu igu yidhi laakiin anuu Soomaalida bahladooda maan eegin social media maan eegin laakiin haddaad 2 cashay siisa buu yidhi waan kuu keeni karaa Soomaalida social mediaheeda 2 cashooyga maqnaa buu yidhi deetana igu soo noqday wuxuu yidhi idinka waxa idinku badan dadka madaxa ka xanuunsanaya wanin caalto oo aan Soomaali ahayn oo Soomaali aqoonin laakiin markuu translate gareeyo baadhay waa nin cilmiga aqoontan leh wuxuu yidhi waxa daawataan waxay u badan yihiin dad aad moodayn wax u dhiman yihiin TikTok baa furaysaa buu leeyahay gabadh qaawan oo sii socoto soo waxna sheegi maysa buu yidhi way sii soconaysaa soo soconaysaa marka ma qof waa la miyaanay ahayn buu leeyahay ilaa waxna kuma sheegin intay marada dhigato bay sii socotaa soo socotaa buu leeyahay waxna kama hadlayso marka xataa umamka kale markay eegaan waxayna waxay u soo baxay saatan waxa ku soo koobaya 3 shay ba muhiim ah in laga hadlo marka media laga hadlayo media huwa risaalad iyo mursil iyo mustaqbal ama mursalu ilay wa cidda wax diraysa waxaan leenahay qof kasta oo media wax ku qoray ama ka hadlay ama wax soo galay wuxuu doonaba haade nabigu wuxuu ku leeyahay man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut nabi maxamed wuxuu yidhi alayhi salatu wasalaam warninka ilaahay iyo maalinta qiyaamo rumaysanow ama iska aamo ama wax khayr la ku hadal intuu dambi ku hadlo ayuu ku leeyahay faafi meel fog gaarsiiya macnaheedu waa maxay waan dambaabayaa aad idinku inay ila dambaaba weeyaan anigu waan dambaabayaaye markaas aadna qaybinaysaa oo kuwa kale sii gaarsiin nin baa ku leeyahay war waan dambaabayaa xoog u dambaaba aduguna daawashadiisa dambiya faafintiisa dambiya bal inaad kali ku tidhaahdaaba mararka qaarkood dambiya waayo xumaha albaabkiisa in la furaadee ma banaana سادرادد بالنبي وحينا لي عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزيل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب قفكو إريبوس كي هذا أنا أفير سنين ودنك لهين تبتنا النار توحوغود خوبتا برئي قلبين انت يسوشرت إن لك بين نار تهوسو جلسة 70 خريفا بقى حديث غاركوت المامس تضباطا ضيرات بو هوسو سي صعدا قفبا هذا لبو نبو كلمة من سخط الله إلهي وحكا عريسيا وأنو يسوق مودين هلكا قاديسي دبتنا إلهي عردي سالو فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة إلهي با عردي سكو حكومة إلا قيامها مركا دادك وحفافينيا أما وحقوريا
saxaabigii Mucaad muxuu nabigu ku yidhi markuu yidhi waxaan ku hadallam yaana loo qabanaya thakaladka ummuka ya Mucaad hooyada ku weydaye ama ka goblantaye oo dadba miyuu madaxa ugu dhacaa ama sanka ugu dhacaa naarta carabkiisa wuxuu ka goostay mooyaane ayuha alahibba فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين بإله إليه يا كظلم بدن كو إلهي كركي سبن كبين أبورنا يسيدتك أولميان أقوم الرؤية وكسوغا إلهي دول كظالمين تاما مهانونيو xumaha iyo zinada iyo cawrada iyo wax la faafinayo kuwana ilaahay wuxuu leeyahay in alladina yuhibbuna an tashi'a al-fahisha fi alladina amanu lahum 'adhabun alimun fi ad-dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun kuwa fawaahishta iyo xumaha faafinayo Soomaalidu markay soo hortaagtay way xishootaa laakiin shaashada ma xishooda wuxuu moodayaa mar hadduu dadka wajigiisa aanay arkaynin wuxuu doono inuu sameyn karo ilaahay baa wuxuu leeyahay kuwa xumaha faafiya ee dadka muuminiinta ku dhex faafinaya cadaab wax laxwiye aakhiriya adduunba ku leeyahay qofka mursalka asaasaynu leenahay waar waxaad qorayso ama faafinayso ama odhanayso iska hubi risaalada madmuunku xumaho qura maaha waa laga yaabaaba inay runtahay laakiin qasdiga laga leeyaa xun usluubka loo cardinaya qaldan oo tahwiil iyo takraar iyo talmiic iyo tarkiis iyo waxba lagu sameynaya marka waa usluubka risaalada loo qoraya wax badan sameyn kara مثلا qof baa kule run baan sheegaya laakiin runta wuxuu uga dan leeyahay inuu laba reer isku diro istilaan way jirtaa waxaan uu sheegayaa laga yaabaa inuu shir ama ka qayb galay ama meel uu tagay qolo wax qaldan ay ku hayaan laakiin si dadku isu dilaan buu intii boodaya sir weyn oo la helay sir fakatay sirtu sheegaya waa maxay waa namiiminimo nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay laa yadkhulu aljannata qatat aw namam jannada ma galo ninka qataadka ama namaamka ah ka dadka isku dira walow runnaha ahata waxaad sheegaysa mar haddii qasdigaad ka leedahay uu yahay in dad istilo wuxuu leeyahay warnaba baan hayaa waa warnaba oo naarta lagu galaya laakiin ku hayaa warnaba oo naarta lagu galaya weeyaan mararka qaarkood wax yar baa dhacaya laakiin wuu buunbuuninaya wuu qurxinaya si kale u dhigaya nabigu wuxuu yidhi inna min albayaani la sixra xadiiskii bukhaari cadaynta iyo warsheega waxa ka mid ah mid sixira buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wararka qaar baa u baahan in la asturo وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به كوابو إلى هيري ور عبسي كينا يا من نبتك مركو يمادو مركبه ويفافيان هداي النبي قوي علين لهايين يدتك أولو الأمر قاه كواسي ويقرن لهايين دي وحلا فافين يا وحلا فافين يا وحلا قادني ور بالله ما شيغو وحكولي هي وحلا سوء قادي madaxweyne ba kan xaday kama kan sameeyay war ceebta lama faafiyo qofka muslimka ceebtiisa faafiya ilaahayna isagu ceebeeya kuwa dadka ceebeeya YouTube ku jira intooda ugu badan leh aakhirka wuxuu maad arkaysaa ceebtooda iyagana ilaahay faafiyay ceebta bini'aadamka qofka ceeba astura ilaahayna ceebtiisa astura ceebta bini'aadamka lagu dhex faafiyo waxaan leenahay marka madmuumku وين النقضة ورله بينات شاكتو بئس مطية الرجل الزعم من حدث بحديث هبو وكلا ورنك الشيغة سيقو أقن وركو بين يهي وحكمدي هاي محي لبدا بنت شيغة ما بين الله حكمدي اسكا هذا الكم فينا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وحل يري سامبان مقل سامبان لا شيء وروح سيدين تكوما بدنا adiga maxaa kugu waajiba hadaba kuwaasi waa kuwa waxaan soo faafinaya adiga maxaa kugu waajiba adiga waxa kugu waajiba mustaqbalka at-tabayyun min haqiqati al-khabar aw min taqti'ihi inaad wax iska hubiso waayo qarba warka waxay kugu sheegayaan ala tariiqati fawayl lil musallin hada laysoo googooyeen bay ku keenayaan hadalka oo dhan hadaa dhageysato macnihiisa waad fahmaysaa iyo qasdigu u jeeday ninkani laakiin jumla kamida jumlaadkii uu qofku yiri ay intay soo gooyaan
quraanka haddaan ku idhaahdo waxa ku taala fawaylul lil musalliin ka waran ilaahay baa wuxuu yidhi halaag wuxuu sugnaaday kuwa tukada soo quraanka kuma taalo run sheegi maayo laakiin ma kuwa tukadoo dhanba maya waxaan ka gooye wixii ilaahay ku sheegay kuwa alladina hum an salatihim sahun baa layidhi kuwa salaadooda ka taga kuwa weeyaan baa layidhi laakiin haddaan inta dambe ka jiro inta hore kuu keeno akhbaar badan oo maanta la faafinaya siyaasiyiin ka sheeg waa warbadh la gooyey oo macnuhu siduu ahaa macno kala yeeshay ilaahayna wuxuuna leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqun binaba'in fatabayanu war faasiq war hadduu idinla yimaado iska hubiya baa ilaahay yidhi si aydan dad gardarro aydan ugu dhibin oo idinkoo moodaya inaa saxantiin aydan dad ugu dhibin waana wada maqasheen baa laga yaabaa aayaadkaasi ciddii ay ku soo degtay